ballaaran ee qiimaha leh ee hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici iyo xubnaha golaha wasiirada leh mudane madaxweyne halkan aan maanta ku sugannahay waa degmada Tukarraq oo ka tirsan gobolka Sool xuduudda Jamhuuriyadda Somaliland oo inoo jirta 69 kiiloomitir mudane madaxweyne waxay naga xigaa 4 degmo ama 4 magaalo haddaan kuu kala sheego kala ah Badqaboobe Fallidhiyaale Garaca iyo Buurooda intaa wuxuu ka sheegay waxa la tegayaa xuduuddii caalamiga ahayd labadii isticmaar ay Ingiriiska iyo Talyaanigu ay dhigteen mudane madaxweyne saad lagu sheegay waxa xaqiiqada deegaanka maanta aan ku sugannahay ee Tukarraq inuu ka arday yahay dhammaan baahiyaha aasaasiga ah ee dadku ay u baahnaayeen ama xaqqa dastuurka u lahaayeen halkan waxa ku ooli jiray kastamka Tukarraqeed ee maamulka Puntland ee gobolka Sool lagu magacaabaa toddobadii casho waxa ka soo xoroon jirtay sida dadka deegaanku sheegeen lacag cadadkeedu gaarayo $330,000 lacagta cadadkeedu gaarayo inta leeg haba yaraatay wax laga qabto baahiyaha aasaasiga ah ma jira Somaliland ilaa iyo intii ay soo socotay dalka wax dhibaato kala kulmay ma jiraan bash iyo barwaaqo iyo baraara lagala kulmay ascaano tii aad ogeydeen maaha meel kasta oo Somaliland timid wax dhibaato ah oo wali la ii soo report gareeyay intaan ciidamada la shaqeynayay ama aan Somaliland u shaqeynayay ay ciidamada qaranku u geysteen wali la iima sheegin Somaliland intay gaadhay dalka taleex baanu oo 200 kiiloomitir hadda inoo jirta intaanu tagnay wax badan baa laga qabtay guryo badan baa laga dhisay hanti badan baa la geliyay 6 hay-adood baa hadda ka shaqeeya 74 qof yaa dollar ka qaata 6 hay-adoodna waa ku jiraan oo hay'adda ugu yar 3 baabuur baa u kiraysan income-ka ma heli jirin halkanna waa la gaarsiinaya guryo badan baa laga dhisay taliye qaybtaanu ka dhisnay saldhigii baanu ka dhisnay gurigii haddii alla xukmaayo dawladda hoose oo baaba'ay iyo kii maaliyadan dib u dhisnay gurigii gafaratoraha renovation lagu jiray meeshii berdihii baanu hagaajinay caanka ah oo lacag badan gelinay gurigii martidaa soo socda oo miisaaniyadda ku jira halkanna wax badan baa laga qabanayaa waxaa ku dhawaaq wixii hadda aan madaxweynuhu ku dhawaaqi doono iyo wixii dambe oo laga daba keenaaba waxay noqonayaan wax iska daba yimaada ee maaha wax go'aya oo hal mar intii la idin yimaado halkaa mar ku go'ay sidaa dadka wuxuu weydiisan lahaydeen iyo sidaa dadka ula dhaqmi lahaydeen iyo sidaad hay'adaha u soo dhaweyn lahaydeen iyo sidaad ummadda wax ula qaybsan lahaydeen cidda laga rabaa waa idinka annaga ma cidda laga rabaa waa idinka reer taleex baanu markii hore saa ugu taagwey ilaa ay hay'adihii markay arkeen lacagta dollarka iyo baabuurta la kiraysanayo iyo waxaanu guryo u dhisayno markay arkeen bay soo dhaweeyeen idina markaad aragtaan wax la dhisayo iyo hanti iska daba socota wixii la shaqaalaysiin karo waa la shaqaalaysiinaya wixii askar laga tegay ee maamulkii ka tegay waa la qoraya wixii kastamka ka shaqayn jiray waa la qoraya macallimiintii iskuullada geli jirtay waa la qoraya haddii alla xukmaayo wixii wax qabadana waxaa ku dhawaaqi doona madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland reer Tukarraq guur kastaaba dhibtiisu leeyahay haddii waxa kale guurkii dhibni soo gaadhayna waa dul qaadanaysaa waad ka raali ahaanaysaan wax la idin ku kastay ama in la idin dhibaateeyo ciidanka qaranka Somaliland iyo dhammaan Jamhuuriyadda Somaliland inay wax idin tartamoyaan idin lama socoto inay idin dhibaateyso wixii dhibaatay maad kala guurka soo gaadhay waa idinka raali galeynaa odayaashii waa isagoo hadlay runtii aad u qiimo badan wixii jiray sheegeen waahida dhulka taallay sheegeen annaguna warkay badan oo inta ciidanku la joogeen maartay iyo odayaasha naga soo horeeyay iyo waqtigii naga soo horeeyay markii labaad Saleemaan nala socda iyo majanka ciidanka haysta Master Nuux way noo sheegeen kulli baahiyaha jira iyo dadka maartay culayska fuulay
waxaan runtii sidaan idiin sheegay wasiirku aqbala idinku qaadaynaa mar haddii maanta maamulkii Soomaaliyeed ka mid ahaydeen markii soo gaadhay waadna shifaysanaysiin oo waad noo sabraysiina waadna shifaysanaysiin waad noo sabraysiin wixii la qaban karo kol baytaanku yahay waa la qaban adeegyada asaasiga hadday iskuulka tahay waad u rabtaan hadday ardayda ka badan tahay in la biiriyo rabtaan waa la biirin oo ku filayn haddii iskuulka ardayda ku filayo deerka waa loo soo xidhana waan u soo xidhaynaa deerka hadda la dhagax dhigay caafimaadka iyadoo imkaan arday waxa la caafimaadku waa dhowr talaabo waxa la qaybta hore health boys baa la ka labaad waxa la FCH baa la ka saddexaad waa dhakhtar marka waxaan malay waxay dhisay waa health boys marka darajada waa ka dalacsiino FCH baa idin dhisay dhagax dhigana FCH ki duma ku mulkanayeen isbaal sariir laga yeelay warka loo sameeyay inaan idin dhagax dhigaan ku liminay waan dhagax dhignay FCH kana insha Allah حاجة مارتها قويتها الدولة العثمانية السعودية وقت كانوا جورا كتيرنا وايدين مقالنا وايدين من الستاقلت وايدين ما يساوون من هذا بركة خد عي والله شيء إحنا كقبة كروان سدخ سايد كوي من يسا وكمان تاع جونا الرياقي سويلي من إن شاء الله لبس تعيش جهود إنك وحيد ديا لو بهاي والني دامنا يا الدولة ويتعالى واحد سلاح تيم موبايل عيني مريو وريجيا سوق قاعدين بقى هي ترتي عند نرش قيسة وهي أرسل هذا وقبل كان صار رتي وحوين كقبل حاجة بيها يا عافمات هذا وش قيسة يا خير راح سي مرتين الملاحي ولا هذا ويصير كانوا صدر وصار عمري ما كان وين مريان وهي عافمات كنا قبل ونقل قبريان بيها وين مرتين وحيد كان تاكلوا وين دعمينيان labada kameerood iskuul kale waxa soo hal doonaayo haday tayru rabaan iyo laba kaas ma rabadkii loo hado yaa roo dhagax dhiganaa sida kale wasiirku sheegayna waxa weeyaan waxaad ka mid tihiin qaranka Soomaaliya mid ka mid tihiin